telefonka selfie toosnaad zoomka awde banaanka iskagee loof noo saar commenti naga dhiib sheerka dhinacaga noo sheergay ay haddaan soo heesa heeskayga tigi saar waxaan kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan walaalaha ku xiran channelka Daacad Tube markaana waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono tadabo wado oo lagu garto saaxiibka dhalanteedka ah inta aynu gudogaleen muuqaalkan waxaynu ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato inaad subscribe saarto gambalelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino halkan sidoo kale aad like nagu dhiirigeliso muuqaalkan aad la wadaagto asxaabtaada dhanka iyo comment-gana waxa xaqiina una soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran gadi telefonka selfie toosnaad zoomka awde banaanka iskagee loof noo saar commenti naga dhiib sheerka dhinacaga noo sheergay ay haddaan soo heesa heeskayga tigi saar waxaan soo sheegay dhegataada u furo waad ogtahay saaxiibtinimadu waxay leedahay miisaan u gaar ah nolosha aadanaha qiimo gooni ah ayay ugu fadhisaa saaxiibka waxa uu noqon karaa qofka ugu horeeya ee aad agtiisa ku nafisto oo aad xasilooni iyo ammaan ku dareento waxa kale oo dhici karta in saaxiibtinimada ay dhibaato badan ku horseedo waa markaad aragto wajiga dhabta ee saaxiibkaaga u qarsoon haddii aad aragto saaxiib aan mid rumaad ahayn sida ugu dhaqsiyaha badan ugu fogow si aad albaabada ugu furto saaxiibo rumaad oo noloshaada horumarkeeda ka qayb qaadan kara sidaa darteeda waxaa jira calaamado ay wadaagaan saaxiibada danaystayaasha ah oo haddii aad qof ku aragto ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato calaamada koowaad ama qodobka koowaad waxa ay tahay markaad u baahan tahay ma helaysid saaxiibka rumaad si joogtaha ayuu kuu garab istaagaa waxa uu aad u raadiyaa faahfaahinta noloshaada halka saaxiibka dhalanteedka ah uu marmarasyo ka dhigto waddo kasta si aanu garabkaaga u istaagin qodobka labaad waxa uu kula soo xiriiraa marka uu wax kaaga baahan yahay oo keliya saaxiibka dhalanteedka ah waxa uu kula soo xiriiraa marka ay dankaaga xiran tahay oo wax kaaga baahan yahay oo qura daraasad arrintaa laga sameeyey ayaa sheegaysa in 70% noocyada saaxiibada ay danaysi ku dhisan tahay halka 30% oo qura ay tahay mid rumaad oo aan maslaxad gaar ah ku dhisnayn saaxiibada rumaad si toos ah ay iskula xiriiraan iyagoo aan dan gaar ah iska lahayn qodobka saddexaad waxaa ku adag in uu fahmo fikirkaaga saaxiibka dhalanteedka ah waxaa ku adag in uu fahmo habkaad u fikirto markasta waxaad u baahan tahay in aad wax walba fahansiiso si ka duwan saaxiibka rumaad markasta si wanaagsan ayuu u fahmaa fikirkaaga qodobka afraad waxay noqonaysaa markasta wuu iska kaa jeclaysiiyaa runtana kuma sheego saaxiibka dhalanteedka ah wuxuu ku dadaalaa inuu iska kaa jeclaysiiyo oo aanu runta kuu sheegin dhaliil kasta oo aad leedahay halka saaxiibka rumaad uu markasta runta kuu sheegayo aanu dan ka lahayn in runta uu kuu sheegayo ay ku damqinayso iyo in kale maadaama uu markasta jecel yahay maslaxadaada inuu ka taliyo qodobka shanaad wuxuu noqonayaa saaxiibka dhalanteedka ah inuu dhibaatooyinkaaga dhagaysto diyaar uma ahan dhagaysiga wanaagsan waa qayb ka mid ah nolosha marka ay mushaakilku soo wajahdo waxaad u baahan tahay in aad hesho saaxiib wanaagsan oo garabkaaga jooga oo si fiican kuu dhagaysta haddii aad aragto inuu doonayo in mushaakiladiisa oo qura uu kuu sheegto adigana aanu waxba kaa dhagaysanaynin waa calaamad muujinaysa in uusan ahayn saaxiibkii aad u baahnayd ka eg calaamado xaasidnimo ah inta badan dadku waa saaxiibo wanaagsan inta la wada siman yahay oo aan waxba lisdheereen laakiin marka aad guul gaarto ayaa dadka qaar ku arkaysaa calaamado xaasidnimo iyo in aysan raalli ka ahayn guulaha aad gaartay waxaana dareemaysaa sidii inay tartan kugula jiraan oo kale sidaa darteeda iska ilaali saaxiibada noocaas oo kale ah noloshaada culays mooyaane faa'iido kale uma lahan qodobka ugu dambeeya warbixinteena waa qodobka 7aad wuxuu noqonayaa saaxiibkaaga rumaad sirtaada ma faafiyo markaad saaxiibkaaga u sheegto sirtaada oo aad meel kale ka maqasho ogow inuusan qofkaasi ahayn saaxiibkaaga rumaad maxaa yeelay saaxiibada dhabta ah sirahooda iskama faafiyaan ugu dambeyn saaxiibkaaga u run sheeg oo wixii aad ku aragtay oo aadan ka helin u sheeg
haddii aad ku aragto calaamado qoomameyn ah iyo inuu ka xun yahay wixii dhacay, fursad labaad si uu u noqdo saaxiibkaaga wanaagsan. intaasi ay inoogu eg tahay warbixintii aynu idinku talagalay. muuqaalkiisa xiga inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaano Allah. hana ka iloowina channelkan inaad saartaan subscribe, gambaleelkana aad furtaan, like-tana aad inagu dhiirigelisaan, muuqaalkana aad asxaabtiina la wadaagtaan. sidoo kale wixii fikrad aad inoo haysana aad inoogu reebto dhanka hoose ee commentiga.